sheekha hotel baan haystaa waxaana ii yimaada dadka safarka ah oo iga cunteeya ramadaan haddii la galo cunto karinta ma sii wadi karaa maadaama dadka safarka ah ay afuran yihiin mas'aladaasi waxay salka ku haysaa xukunkeedu ama jawaabteedu mas'ala khilaaf ku jiro oo la yiraahdo hal al-kuffaru mukhatabuna bi furuu'i shari'a hadayhiin dadka ka adeeganaya maalinka ramadaan cuntada ka cunayay aduguna aad muslim tahay gaaladan ka cuntaynayay shariicada furuucdeeda sida soonka oo kale iyaga ma laga rabaayo ma lagula hadlay mise lagulama hadlin masaladaas waana khilaafka ku jira jumhuurtu waxay u badan yihiin gaaladu inay lagula hadlay furuucda shariicada asalka in laga rabo tawxiidka waa la isku waafaqsay laakiin intayna tawxiidsanin cibaadaadkan kale iyo waajibaadkan kale ma laga rabaa mise lagama rabo waa laga rabaa hadii la yiraahdo maalinta ay muslimiintu soomayeen iyagana waa in laga ilaaliyo oo loogu kaalmaynin wixii yaani ruuxa Soomaaliya muslimka loo diiday hadii la yiraahdo lagama rabana markaasi cagsi bay noqonaysaa masaladaas waa asalka khilaafkiisa masaa'isha ka dhalanaya ee ku dhismay ee lagu takhriijinay masaladani kamid hadii ay tahay masaladu dadku waa musaafiriin meel yaani wax weeyaan musaafiriin jidbad ku taala maqaayadu ku taala dadka wax ka cunayana aqlabkoodu waa dad musaafiriin ah markaasi ma banaan tahay mise ma banaan inay furnaato way furnaan kartaa markaa laana wax weey wax diidaya ma jiro asalaan musaafiriinta waa loo ogolaaday inay afuraan cunteeyaan sooma cuntadii shariicadu u ogolaatay inaad adigu siisana lagu diidi maayo inaad ka gadatana lagu diidi maayo waxa la diidaya wax weeyaan cid ayna shariicadu u ogolaanin inuu afuro inaad u kaalmayso cunto siiso shariicadu ma ogola inuu afuro xaraam buu ku afuran yahay marka sad cunto siiso u kaalmayso wala tacaawunu ala al-ithmi wal 'udwan bay soo gali markaa laakiin dadka musaafiriinta inay afuraan waa loogu talagalay maqaayada laga ganacsado jidka ku yaala in loo sameeyana dhima laha wallahu a'lam